subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waan salaam asxaabay, magacaygu waa Sayid, waxaan ahay wiil jira 16 sano. anigu waxaan la noolahay waalidkay. asxaabay, maanta waxaan ii wadaa sheeko aad u xiiso badan, aadna u argagax badan. sheekadana waxay ku bilaabanaysaa maalin maalmaha ka mid ah markii iskoolka laga fasaxay ayaa macsalaameeyay saaxiibaday, waxaana ku noqday gurigeygii. markii aan baabka furay waxaan arkay gurigii oo mugdi ah. hooyay aabe xageeba aadeen, kadibna si lama filaan ayay nalkii u iftiimiyeen wayna shideen. guulayso wiilkaygiiyo oo noqo midka lambar kowga gala imtixaanka marka lasoo dejiyo. aniguna markaan maqlay hadalka aabahay aad ayaan u farxay. kadibna hooyada ayaa hab i siisay, waxayna igu tiraahday wiilkaygiiyo waxaan ku rajaynayaa inaad guulo badan gaadhid, dadkana ilaahay hooyo iyo aabaha kaaga dhigo. insha Allah hooyo, adigana ilaahay jannada ku geeyo, abaalkaaga waxaan ku gudamahayo. waryaana kuma dhalin miya oo ima dhaysid miya aab ilaahay jannada ku geeyo? aan waxaan oo dhan soo gudin miya? markii xaaskiisa maqashay hadalkaas aad ayay u qosashay, waxayna ku tahay warnaga aamus wiilka hadiyad badan iyo dhimanaa ka qisan hadiyadaha. hooyo adna hadiyadan fur, waana hadiyad cajiib ah. haddii aad fidhidna waad ku farxi doontaa oo waxaad ku arki doontaa waxyaabo yaab leh. aniguna hooyaday waxaan u fiiriyay si farxad leh, waxaana bilaabay furitaanka hadiyadda. hooyo ma ii sheegday intaanan arko wax farxad leh meeshan ku jira? waxaa laga yaabaa inaan ahayn waxaan ku faraxsanahay, bal ii sheeg waxa ku jira meesha inta aan furin. wiilkaygii oo fur oo amarka hooyada qaado, waxayna ku tiraahday eeg waxa ku jira, adiguna gacantaada ku baar, gacmo ma lihid niyaadu. kadibna anigu waxaan bilaabay furitaanka hadiyadda. waxaan hadiyadda kasoo dhex saaray telefoon. aad ayaan u farxay, waxaan iraahday hooyo aab aad ayaad mahadsantihiin maadaama aad ii dadaasheen. aabahay ayaana telefoonka ii keenay, wuxuuna iigu diray lacagta hooyaday, balse hooyaday way soo weeday telefoon fiican, waxayna lacagta u celisay aabahay ayaana ii soo gaday telefoonkii. runtii ma aqaan waxaan idhaho hooyo aab aad ayaan u mahadsantihiin, labadiina aad iyo aad ayaan ii jeclahay. waxaan rajaynayaa inaan jannada isku aragno saddexdeenuba. kadibna waxaan bilaabnay inaan wada sheekaysano annagoo cunayna keeg iyo macmacaanka meesha yaalay. habeenkaasna waa habeen igu weyn nolosheeda oo aan dareemay farxad aad u weyn maadaama aan la joogay labadeeda waalid ana la qaadanayay farxad aad u weyn. isbuucii xigay markii aan aaday iskoolka, saaxiibkii xasan lagu magacaabo ayaa wuxuu yiraahday saaxiib waxaan ku rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo bashbash. aniguna waxaan ugu jawaab celi oo aan ku iraahday adiguna sidoo kale ayaan ku rajaynayaa saaxiib. isbuuc dibad markii aan fasaxa galay waxaan la keenay hadiyad aad u cajiib ah. markii aan guriga ku noqday, waalidkay waxay ii sameeyeen xaflad aad u weyn oo ah imtixaanka natiijadii aan keenay. waxayna ii keenay hadiyad qaali ah oo ah telefoon. aabahay ayaana wuxuu ii keenay telefoon qaali ah. maasha Allah, waa noocii u dambeeyay ee hadda soo baxay, waa iPhone-ka ugu dambeeyay saaxiib. maasha Allah. war saaxiib, surprise inta kaliya muusan ahayn, hooyadayna waxay ii keentay PlayStation. aabahay ayaana wada ciyaarnay PlayStation-kii, waqti wanaagsanna waa wada qaadanay. maasha Allah, waalid wanaagsan ayaa leedahay, waalidkaaguna waa waalid fiican. waxaan jeclaan lahaa inaan yeesho waalidkaas oo kale. ha oran sidaas saaxiib, aniga ayaa kuu jooga. midkoodna ima fiirsho ama ima xasuusto maalinta aan faraxsanahay ama natiijo fiican aan keenay. sidoo kale haddii aan wax sameeyo, hooyada mar walba way ciqaabtaa oo way dishaa. ha murgoonin saaxiib, dhib male, aniga ayaa kuu jooga markastaba. waa la qabsaday arrintaas. ka hor inta aan hadlin, macalinkii ayaa fasalka soo galay, wuxuuna bilaabay casharka. maalintii waxbarashadu way dhammaatay, waxaana soo gotiyay Xasan, waxaana ku noqday gurigii. markii aan guriga imaaday, hooyada waxay tiraahday kusoo dhawow gurigaaga wiilkaygiiyo, sidee tahay maanta? maasha Allah hooyo, waan fiicanahay, adigu sidee tahay? xaaladaada ka waran? miyaadan maanta shaqo aadin? maya, waxaan dareemay daal yar, sidaas darteedna shaqadii ma aanan aadin oo xaafadda ayaan iska joogay. hadda ma fiican tahay hooyo? haa, waa fiicanahay wiilkaygiiyo, howlwelin. hadda kaalay dharka iska bedel si aad qadada u cunto, maxaa yeelay anigu qadada waan ku diyaariyey, adiguna waa daalan tahay oo kaajo daran ayaa ku haysa. hooyo aad ayaad u mahadsan tahay, maxaa yeelay wax kasta oo aan rabo mar hore ayaad samaysaa. aad ayaana ku jeclahay hooyo. maya wiilkaygiiyo, ammaanta badan iga daa, aniguna waxaan ku dawixii waajibkayga ahaa. adiguna waxaa tahay wiilka keliya aan dhalay. aad ayaana ku jeclahay aniguna sidoo kale aad ayaan ku jeclahay hooyo. hooyo aabe shaqadii miyuu ka soo noqday? maya wiilkaygiiyo, weli muusan ka soo noqon, laakiin dhowr daqiiqo hor ayaan wacay, wuxuuna ii sheegay inuu soo socdo oo uu imaanayo mar dhow. hagaag hooyo, waan kusii salaamaya hadda. kadibna anigu waxaan aaday qolkayga, waxaan iska bedelay dharkaygii iskoolka. markii aan kasoo baxay qolka, waxaan arkay in aabahay shaqada kasoo noqday. kadibna waxaan wada fadhiisanay miiska cuntada, waxaana bilownay cunista cuntada. cuntadu aad bay u macaan tahay. dabcan waa macaan tahay, iyadu waxay diyaarisay dhammaan cuntada aad jeceshahay wiilkaygiiyo, balse hooyada aniga ma tixgeliso codkayga oo ma kariso cuntooyinka aan jecelahay, waxayna karisaa cuntooyinka adigoo aad jeceshahay.
xaaji sidaas oo dhan miyay igu xanaaqsan tahay? Bas marka berri ayaan karin doonaa cuntooyinka aad jeceshahay adigu. Hadda ii sheeg cuntooyinka aad jeceshahay si aan berri kugu koriyo. Midda kale cuntooyinka dhan naga dhex saar bal. Maanta shaqadii sababay ku ahayd ma ku wanaagsan mise ku xumeed? Gacalisa shaqadu way xumeed. Maxaa yeelay adigu halkaas maadan joogin? Waan ogaa inaad sidaas dhehayso. Waana ka raaligelinay maadaama maanta shaqadii imaan waayay. Maxaa yeelay markaan subaxdii soo toosay waxaan soo toosay anigoo daalan. Sidaas darteed ma aanan awoodin inaan shaqada aado. Caadi way gacaliso. Waxaas dhan waxaa ka muhiimsan caafimaadkaaga. Waxaan sidoo kale ka fikirayaa inaan shaqada fasax ka qaato oo aan aadno meel aan waqti fiican ku qaadano. Runtii aabbe waa fikrad wanaagsan, gaar ahaan haddii aan fasax qaadano isbuuc dhan. Aniguna fasaxaas waxaan ka qaadayaa nasasho aad u weyn. Hagaag wiilkaygiiyow, haddii aad rabto inaan qaadano fasax waan qaadanaynaa oo waxaan qaadanaynaa isbuuc dhan. Waxaan u safri doonaa dal kale. Markaan maqlay hadalka aabbahay aad ayaan u farxay, waxaana dareemay farxad aad u weyn. Maalmihii si degdeg ah ayay noo dhaafeen. Waxaan u safarnay dal kale si aan waqtigeena fasax halkaas ugu soo qaadano. Markii aan halkaas tagnay waxaan ku yidhi aabbahay waxaan hadda samayn doonaa aabe. Wuxuu ugu yiraahday waxaan qaadan doonaa gaari kiro ah si aan hoteelka u tagno. Madaxa ayaa ruxay kadibna labadeedii waalidii aniga waxaan soo raacnay taxi annagoo u socono hoteelka. Markii aan gaarnay hoteelkii waxaan labadeedii waalid ku yiraahday safarkaan soo galnay dabaqan oo kaliya ayaa ku ekaan doonaa oo halkan ayaa joogi doonaa mise waan ka tagi doonaa oo meelo qurux badan ayaan u safri doonaa aabe. Wiilkaygiiyow dabaqan oo kaliya kuma ekaan doonaa, waxaana aadi doonaa xeebta waxaana ku soo qaadan doonaa waqti. Kaalay dharka iska bedel oo diyaar garow haddana. Hooyo macaan. Kadibna dharka ayaan iska bedelay waana diyaar garoobay. Waxaana soo aadnay dhankii badda. Baddiina waxaan ku qaadanay waqti aad u wanaagsan. Maalmihii way socdeen, wax walbana way fiicnaayeen. Balse maalin maalmaha ka mid ah ayuu aabbahay yiraahday berri waxaan ku laaban doonaa guriga. Fasaxiina wuu dhammaaday. Si degdeg ah ayuu ku dhammaaday fasaxii. Aabba hal maalin noogu dar oo halkaa kusii joogno. May wiilkaygiiyo kuma dari karno maxaa yeelay anigu waxaan u shaqeeyaa. Laakiin waxaan kuu ballan qaadayaa inaan mar kale halkaan imaan doono oo aan jawi fiican ku qaadan doono. Hooyo hadalkaaga ayaa jira. Maalintii xigtay waxaan bilaabay inaan diyaarsado boorsadayda. Markii aan dhammaystay diyaarinta boorsadayda ayaa waxaa qolka soo galay hooyada oo dhahaysa toosi aabbaha. Anigu waxaan aadayaa xafiiska soo dhaweynta hoteelka si aan ugu sheego inaan maanta baxayno. Waagaag hooyo. Hooyada ayaa qolka ka baxday daqiiqad kadibna way soo laabatay. Hooyada ayaana ahayd mid ordaysay, wejigeedana waxaa ka muuqday cara aad u daran. Adigu weli miyaad dhammayn miyaad diyaarinta boorsadaada? Wax yar ayaa iga dhiman hooyo. Maxamuud hurdada ka kac, waqti ma hayno waa inaan hadda baxnaa. Maxaa jira gacalisa ma fiican tahay adigu? Anigu waan fiicanahay laakiin waxaan haysanaa 5 daqiiqo oo kaliya si aan isku diyaarino oo aan uga tagno hoteelkan. Diyaaradana waa aadno si aysan nooga daahin oo aysan nooga tegin. Aabbahay markuu maqlay hadalka hooyaday wuu la yaabay maxaa yeelay wuxuu la yaabay isbeddelka lama filaanka ah ee hooyada ku dhacay, laakiin uu gacan haatiyay. Annaguna si degdeg ah ayaan isku diyaarinay kadibna waxaan ka tagnay hoteelkii annagoo u socono garoonka diyaaradaha. Tan iyo maalintaasna hooyaday aad bay isku beddeshay, waxayna bilowday inay si xun ila dhaqanto oo ay ugu qayliso. Anigoo qolkii ku jira ayaa wax dhammayn jiray qaar ka mid ah shaqooyinka la iga soo diro iskoolka. Balse habeenada ka mid ah hooyada ayaa soo gashay qolkayga waxayna igu tiraahday guriga aad ku jirtid maaha guri nadiif ah ee kaalay inta istaagtid soo nadiifso. Laakiin hooyo waa waqti dambe, haddana waxaan dhammaynayaa shaqooyinka iskoolka la iga soo diray. Mar kale ayaana nadiifin doonaa guriga waana tirtiran doonaa. Maya mar kale ma samayn doontid, hadda ayaa samayn doontaa waana tirtiran doontaa. Hooyada ayaana si lama filaana gacmahii si xoog leh u qabatay, waxayna iga soo saartay qolka, waxayna i siisay maro, waxayna igu tiraahday hadda bilow nadiifinta oo guriga soo xaaq soona tirtir. Markaad dhammayso waan hubin doonaa guriga. Haddii aan arko wax aan nadiif ahayn oo wasakh ah mar kale ayaad nadiifin doontaa.